wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta magaalada Caynaba ka hirgelisay tigidho lagu dhaqangelinayo cashuurta moorka. Munaasabaddan ay si wadajir ah u wada qabteen madaxa cashuuraha bariga ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Maxamuud iyo xogayaha dowladda hoose degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse. Madaxa cashuuraha bariga Maxamed Jaamac Maxamuud ayaa isagu ugu horreynba sheegay in barnaamijkan uu ku soo baxay digreeto madaxweyne isla markaana ay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland dhaqangelinayso. sida wasiirka wasaaradda maaliyadda bariyahan bay doonayeen inay hirgeliso cashuurta tigidhada maantana doonayaan ku hirgelino dhammaan gaadhay wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda ee gobolka Sanaag xisbiga guddiga wasiirku waraacay ee lagu dhaqangelinayo oo dhammaan lagu dhigsan doono wax laala wixii qoraal ah ee xafiis ama dukumenti ama sharci mas'uuliyiinta gobolka Sanaag hore u gaabiyayna inay cashuuraha bariga dirgeliyaan waxna qabtaan haddana waxaan ugu baaqaynaa in si xirfadnimo ku jirto ay u qayb galaan dirgelinta cashuuraha. xogayaha dowladda hoose Caynaba Cumar Maxamuud Muuse ayaa isna dhankiisa sheegay in shacabka gobolkan ka wacyigelin doonaan ka dowladda hoose ahaan barnaamijkan ku soo baxay digreetada madaxweyne. in kulli waxaan ugu baaqayaa kulli dadweynaha iyo hay'adaha dowladda dowladnimadu wax weeyaan waxaan dowlad ku dhahay sharci دبر وحوار قارة هوتي تجريتنا هوتي سوق قاعدي تجريتو غير مدحوينه iyo nuqulka uu soo raaciyay wasiirka maaliyadda halkan hadda yaala cashuuraha bariga hortooda anagu waxaan ballan qaadanaa dowladda Soomaaliland inaan hirgelino. Maxamed Bashiir Nuur Greek